بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo jiray barnaamijkeennii ahaa al-islaam huwa al-akhlaaq diinta islaamku inay tahay akhlaaq kelibyadii aynu duubaynay maanta insha allahu tacaala waxaan duubaynaa kelibkii afraad ee aan kaga hadlaynay akhlaaqda wanaagsan ee islaamka amba dabeecadda suuban ee islaamkeena runtii waxaa jirta marka xalaqadan waxaan kaga hadli doonaa fawaa'idda ay leedahay yani akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan markaan leenahay dabcan waxay noqonaysaa akhlaaqda wanaagsan wax kasta oo diinteenu ayna amartay iyo wax kasta oo inaga reebtay inaynu ka fogaano bay dhinac kale noqon kartaa akhlaaqda wanaagsan waxaa ugu horeeya horta fawaa'idda ay leedahay annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisi baynu nahay amar buu ina siiyey amarkiisi oon qaadanay baa horta yaa ka xasilaysa oo waxaad noqonaysaa qof amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qaatay ilaahay wuxuu yihi يعني خذ العفو نبينا صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين marka wafiir waa akhlaaq wanaagsan buu nabigu tababar lagu siiyay annaguna aayadaas inaga ayay ina la hadlaysaa marka qofkii akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato micnihiisu waxa weeye wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaatay ayay noqonayaa sidoo kaleeto akhlaaqda wanaagsan qofkii yeesha waxay noqonaysaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii warkiisii yeelay maxaa yeelay qur-aanka kariimka wuxuu ina amray inaynu nabigeena calayhi salaatu wasalaam amarkiisa aynu qaadano yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum atiicu rasuula rasuulka hala adeecaa la yidhi oo warkiisa hala qaato rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaan leenahay warkiisa hala qaato micnaheedu waxaa weye hadday akhlaaqdaadu ay wanaagsanaato waxaad noqonaysaa qof yani amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaatay ayaad noqonaysaa oo maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan yani xadiidkii dheeraanad garanaysaan ittaqi llaha xaytumaa kunt waatbici sayata alxasana tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan fiiri yani dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo waa amar nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku siiyey marka amarkaas iyada marka inaad qaadato wey marka qaadashadaas oo marka wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan haddaad akhlaaqdaadu wanaagsanaato waxaa tahay marka qof nabigeena calayhi salaatu wasalaam amarkiisa qaatay oo ka soo baxay ayaad noqonaysaa sidoo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa fawaa'ideeda ku jirta inaad noqonayso qof nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dayday oo yani waddadiisii raacay oo dariiqiisii raacay qofkii nabiga dariiqiisii raacayna waxaa weeye waa la hubaa aakhiriya adduunba inuu faa'iidayo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahi subxaana wa tacaala maruu ka hadlaayey waa qofka aan ku dayanayna isaga wey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aw iswatun xasana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku sugan baa la yidhi rasuulka ilaahay dayasho wanaagsan marka dayasho wanaagsan micnaheedu maxay tahay dayasho wanaagsan micnaheedu waxaa weeye inaad akhlaaqdiisa aada raacdo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aankay ahayd marka sidaa darteed baa marka haddaad noqoto qof dabeecad fiican waxaad noqonaysaa qof nabigiisa calayhi salaatu wasalaam raacay ayaad noqonaysaa sidoo kaleeto qofka haddii uu akhlaaq wanaagsan uu yeesho wuxuu noqonayaa qof ahlulcibaada buu noqonayaa dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa haddii cibaado lasoo hadal qaado inay u qaataan soonka iyo salaada iyo xajka iyo inuu qofka ay u qaataan o ay dhahaan markaas maasha allah qofkaasi waa qof ahlulcibaado ah qofka ahlulcibaadada fiiri ee soonka iyo salaada iyo ku dadaala haddii adiga akhlaaqdaadu ay wanaagsato waxaan shaki ku jirin inaad maaragtay aada gaadhaysa derajadiisa haddaadan ugu salaad badnayn oodan soom badnayn oodan xaj badnayn laakiin akhlaaqdaadu ay wanaagsan tahay waxaad helaysaa runtii waa ajir weyn baad helaysaa sidaa darteed buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina alcabda addoonka layabluqu wuu gaarayaa bixusni khuluqihi yani dabeecaddiisa wanaagsan darajata saa'im alqaa'im fiiri qof mar walba salaad iyo soon u taagan ayaad noqonaysaa waana adiga akhlaaqdaada un baad fiicinaysay marka sidaa darteed baa marka waxaad meeshaa ka garanaysaa yani faa'iidada weyn ee ku jirta akhlaaqda wanaagsan inay tahay inaad noqonayso qof cibaado weyn gudanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba u dhow oo dadka ehlu soomka iyo ehlu salaadka ah inaad maaragtay derajadooda inaad ku gaarayso ayaad halkaa ka fahmaysaa sidoo kaleeto akhlaaqda wanaagsan amba dabeecada wanaagsan waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a yani in dadku ay maaragtay ay ku hayaan waxa la yidhaahdo amba ay ku sheegaan yani qofka bini aadamka waad ogtihiin dabeecadihiisa waxaa ka mid a inuu bini aadamku wuxuu iska jecel yahay in la sheego oo weliba wuxuu jecel yahay bini aadamku in khayr lagu sheego
marka haddii aad rabtid bini aadamku inuu khayr kugu sheego waa inay akhlaaqdaadu ay wanaagsan tahay sidaa darteed soomaalidu waxay dhahaan waari maysida war ha kaa haro markay leeyihin soomaalidu waari maysida war ha kaa haro waa maxay yacni bimacnaa waa in dadku wax ay kaa dhaxlaan oo war ah warkaasi marka micnihiisu ma aha war oo shar ah ma aha waxaa weye micnaheedu wax wanaagsan inay dadku kaa dhaxlaan ayaa laga maarmaan sidaa darteed baa marka waari maysida war ha kaa haro maxaa yeele nabi ibraahim waad ogtihiin calayhi salaam in maaragtay wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin fiiri ilaahay wuxuu yihi maaragtay dadka dambe ciribta dambe yani lisaana sidqin yani xus ya wanaagis macnaheedu waa maxay yani in wax wanaagsan yani athanaa lxasan wey macnaha yani wax inay ku ammaanaan qofku maxaa yeele qofka hadduu ehlu khayr yahay dadku way ammaanayaan xataa markuu nool yahayna waa la ammaanayaa haddaad dhimatidna de ammaantaada bay ka soo haraysa laakiin waxaa musiibo ka jirta haddii intaad dhimato wax kusoo ammaano aada weyso laakiin haddaad qof xusnulkhuluq yani ku sifoobay oo khayrka iyo raxmadda iyo naxariista iyo jaceylka dadka iyo muxuu ahay nabadgelyada iyo waxaas haddaad ku sifowdo dadku hadhow waxay ku dhahayaan maasha allah qof ehlu khayr u ahaa deeqsi buu ahaa kan buu ahaa marka waxaa weye taasina qofka bini aadamka waa wax iska jecel yahay marka sidaa darteed waa laga maarmaan qofka inuu maaragtay ciribtaada dambe inaad hagaajisato waa laga maarmaan waxaan shaki ku jirin waxyaabaha faa'iidooyinkiisa xataa cilmigaa kuu zaa'idaya qofka yani dabeecadda wanaagsan xataa asbaab oo cilmigiisu inuu zaa'ido ayaa ka mid noqonaya maxaa yeele qofki wuxuu noqonaya qof ehlu tawaaduca qof aan maaragtay cilmiga aan ka xishoonaynin qof dadkii wax weydiinaya qof maaragtay dadkii dhexgelaya qof culimadii la xiriiraya xataa cilmigu wuu kugu zaa'idaya markaad noqoto qof maaragtay dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay waxaa iyadana sii dheeroo kale waxyaabaha laga helo akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah ikhyaartaad ku darmanaysaa la min almustafayn alakhyaar dadka akhyaarta ah marka waxaa weye akhyaartu dadku dad sahlan ma aha oo ilaahay agtiisa aad bay uga xusan yihiin saa darteed bu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiraa la yidhi khiyaarukum axaasinukum akhlaaqan khiyaarukum dadka idinku ikhyaarsan waa dadka idinku dabeecad wanaagsan marka sidaa darteed marka waxaa weeye qofka waxa uu noqonayaa marka qof ikhyaartu ka mid noqonaya ikhyaartuna waa kuwe annaga marka qaarkood hadda waxaan dhahnaa ikhyaarta misalan haddii hadda khilaaf dhaco ikhyaar baa gashaa lagu leeyahay meeshaas يعني معناها دad ikhyaara odayaal baa yihin khiyaarnimadu ma aha inaad de tahay laakin khiyaarnimadu waxaa weeye inay dadku taageero ay ku hayaan taageerada marka waxaa weeye islaaxin bayna annaas waxyaabaha khayrka oo ajirka laga helo waxaa ka mid ah aw islaaxin bayna annaas yani dadka in qofku dadka dhedhexaadiyo dadka markaad dhedhexaadinayso soo ma rabtid marka inay dadku kuu soo joogsadaan oo ay ku dhageystaan soo ma rabtid taa waxaa lagu heli karaa inaad marka akhlaaqdaadu inay wanaagsan tahay oo markaas sidaa darteed ba dadku qofka dabeecadda wanaagsan way soo dhaweynayaan maxaa yeelay akhyaartu ku jira oo axaasinukum akhlaaqan buu soo gelayaa marka sidaa darteed waxaan dhihi karaa faa'iidooyinka ay leedahay muxuu aha akhlaaqda wanaagsan oo adduunyada intaad joogtana faa'iidooyin badan aad ku helaysid aakhare markaad tagtidna aad faa'iidooyin badan aad ku helaysid wax la soo koobi kara ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu akhlaaqdeena aad iyo aad u wanaajiyo idinkuna waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh